السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا كنالكينا مر لواد مرسي دحادبا وطحانيه ليهاليدا أورك إسرائيل qaybtiisii 14 waxaa muuqaalkan kula faguraynaa taariikh nololeed mudan Hudu Macal Cabdullaahi Saalax ee ahaa xubintii 12aad ee dhalinyarada ururka Israa'iil. wuxuu ku dhashay mudan Hudu Macal Cabdullaahi Saalax tuulada Mareerey ee u dhow Afgooye sanadu markay ahayd 1926 wuxuu ku barbaaray guriga waalidkiisa si wanaagsan wuxuuna xifdiyay Qur'aan Kariimka asagoo aad u yar waxaana baray aabihiisa maxaa yeelay aabihii waxa uu ahaa macallin caruurta bara Qur'aanka caalimna uu ahaa dadka u akhriya kutubta cilmiga waxaana lagu tirin jiray dadka magaca weyn ku leh tuuladaasi. Hudu wuxuu cilmiga diinta islaamka iyo mabaa'ideeda ka qaatay culimada magaalada Muqdisho xilligiisii wuxuuna ahaa dadka uu jeclaa mudan Cabdiqaadir Sheekh Sakhawadiin. sanadii 1939 waxaa loo magacaabay kalkaaliye caafimaad mid ka mid ah isbitaalada Muqdisho wuxuuna hayay shaqadan ilaa ay ka burburtay dowladii Talyaaniga booskeedana ay degtay dowladii Ingiriiska. xilligaasi kadib waxa uu ka tagay shaqadii waxa uu qabsaday shaqooyin gaar ah.